Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta saaxiibada aan nahay. Soo dhowaada waa muuqaal cusub aan ku falanqeyn doono muwaadiniinta Soomaaliyeed ee heesta baasaboorka Soomaaliga sida fudud ay ku heli karaan fiisaha dalka Talyaaniga hadday tahay mid waxbarasho, dalxiis iyo sidoo kale mid shaqo. Waa walaalkiin Azaam, haddii uu yahay markaagii ugu horreeyna soo booqday fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar. dabcan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee heesta baasaboorka Soomaaliga ayaa aad ugu adag inay helaan fiisaha dalka Talyaaniga waxbarasho, dalxiis iyo shaqo intaba, taasoo beddelkeeda ay u marayaan ajensiyo iyo kuwo kale oo lacago badan ay kaga qaadanayaan in shakhsigaasi fiisaha uu helo. Haddaba muuqaalkan dhammaystiran waxaan kugula wadaagi doonaa si fudud aad ku xareysan karto fiisahaasi dalkaasi Talyaaniga nooc walba ay ahaato ayadoon kaaga bixin wax waqti badan iyo sidoo kale lacag badan. Sidaan wada ognahay, dowladda Talyaaniga ayaa ah dowladaha ugu fudud ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan, isla markaana baasaboorka Soomaaliga lagu tagi karo dalkaasi Talyaaniga. Talyaaniga wuxuu ka mid yahay wadamada si toos ay u joogaan dalka Soomaaliya haddii ay tahay safaaradooda iyo haddii ay tahay muwaadiniintooda intaba. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa aad ugu adag inay helaan fiisaha dalkaasi ee Talyaaniga ayadoo loo marayo wadooyin kale oo markaas lacag badan kaga bixi karto qofka raba inuu aado wadankaasi. Haddaba muuqaalkani waxaan kugula wadaagi doonaa 4 arrimood ay ku fududeyn karaan inaad fiisaha si fudud aad ku hesho. Sidaan ognahay, muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa dalkaasi Talyaaniga waxay ku tagi karaan in ka badan 3 fiiso ay ugu horeeyaan fiisaha waxbarashada, dalxiiska iyo mid shaqada. Aan ku bilaabo fiisaha waxbarashada. muwaadinka Soomaaliga oo heesta baasaboor Soomaali iyo shahaadooyin dhameystiran wuxuu ku tagi karaa si fudud fiisaha waxbarashada ee dalkugalka wadankaasi Talyaaniga. Saad u hesho fiisaha waxbarashada ee wadanka Talyaaniga waxay kaaga xiran tahay kaliya inaad hesho mid ka mid ah jaamacadaha dhaca dalkaasi, inaad ka hesho aqbalaad jaamacadeed, ama haddii ay jiraan qof kuu fududeynayo inaad hesho aqbalaad jaamacadeed ee wadankaasi Talyaaniga. dabcan jaamacadaha dalka Talyaaniga ayaa aad u fudud in la helo aqbalaadahooda jaamacadda, waayo waxay leeyihiin website-yo official ah kaasoo laga xareysan karo jaamacadda, isla markaana waxaa aad u fudud inaad hesho qof dalkaasi ku nool Talyaaniga kaasoo kuu fududeyn kara inaad hesho mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalkaasi. Haddii aad hesho aqbalaad jaamacadeed ee dalkaasi Talyaaniga, waxaa aad u fudud inaad xareysato ama inaad marto processkii ahaa inaad fiisa aad xareysato. dabcan waayadii hore waxaa loo tagi jiray fiisaha dalkaasi Talyaaniga inaad markaasi aado wadanka Kenya, laakiin 2023 ilaa 2025 maantadan aan joogno, dowladda Soomaaliya waxay hirgelisay inay dowladda Talyaaniga ay ku soo dhaweyso Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho Xalane. Safaaradda dalka Talyaaniga haddeer waxay ku taalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xalane. way fududahay inaad fiisaha dalka Talyaaniga aad hesho haddii aad qaadato ama aad hesho mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalkaasi Talyaaniga. Si markaasi fiisahaaga aad u xareysato, kaliya waxa ugu adag ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku dhiban yihiin ayaa ah inay helaan bangi statement dhameystiran, taasoo dowladda Talyaaniga inta badan dadka ay ku soo celiso. Si aad u hesho bangi statement dhameystiran maaha mid adag, oo waxaad ka heli kartaa familkaaga ayagoo noqon doona sponsor ama wakiil ay ka noqon karaan, ama isla markaaba maadaama dalkaaga Soomaaliya aad joogto way fududahay inaad bangi statement dhameystiran oo sax ah sameysato. taasina waxay ku fududeyn doontaa inaad fiisahaaga aad ku hesho si qurux badan, lacag badan aysan kaaga bixin, gacantaadan aad ku soo qaadato aadan u marin wax ajensiyo ah. sidaas la mid ah dukumentiyada kale kaaga xiran inaad hesho fiisaha waxbarashada dalkaasi Talyaaniga oo way fudud yihiin. Safaaradda dalka Talyaaniga ee ku taalo magaalada Muqdisho waxay ku ogoshahay inta aadan fiisaha xareysanin ka hor inaad dokumentigaaga aad ugu dirto website-kooda, isla markaana ay balan kuu qabtaan. balantaa kadibna halkaasi aad tagto, waxayna markaas ay jeegareyn doonaan dokumentigaaga oo dhameystiran haddii ay tahay jaamacadda iyo haddii ay tahay dhammaan dokumentiyada aad sidato. intaa kadib, safaaradda dalka Talyaaniga ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho waxay kula soo wadaagi doonaan in dokumentiyadaada oo dhameystiran ay jeegareeyeen, isla markaana wax qalad ay ku waayeen, fiisahaaga aad soo xareysan karta ama baasaboorkaaga aad u geyn karta. muddo 21 maalmood gudahooda waxay ku soo siin doonaan fiisaha dalkaasi Talyaaniga mid waxbarashada ah. intaa wixii ka dambeeya kaliya waxa ku harsan inaad tikidkaaga aad jarato.
haddii ay jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo aad ay ugu adag tahay inay xareystaan jaamacadaha dalka Talyaaniga, waxaan qaybta hoose ku soo dhigay website-yo oo ah jaamacadaha dalka Talyaaniga kuwoodii ugu facweyn, taasoo aad ku xareysan karto si free ah, admission-kin aad ku heli karto ama aqbalaadda jaamacadeed si free ah, wax lacag ay kaaga bixaysana ma jiraan. intaa wixii ka dambeeya, haddii ay jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed u baahan in laga caawiyo, fadlan nagala soo xiriir qaybta commentiga si aan kaaga caawino. qaybteena xiga waxay noqon doonaan sida ugu fudud markaasi dadka raba shaqo inay ku aadaan iyo kuwa dalxiiska inaan ka soo sameeyo muuqaal dhameystiran. inta aan ka gaarayno muuqaalkan muuqaalkiisa xiga, waxaan idinkaga tagayaa. Salaamullaahi calaykum.